inta la xaqiijiyay 5 qof oo isugu jiray shaqaale dawladeed dad rayid ah iyo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar al-shabaab ay ku qaadeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ay soo gabagabeeyeen howlgalkii ay ka wadeen hotelka SYL oo weerar ay ku soo qaadeen al-shabaab shalay gelinkii dambe. sida lagu sheegay war ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ciidamada dawladda ayaa toogasho ku dilay 5 qofood ee weerar ku soo qaatay hotelka SYL waxaana ujeedkoodu ahaa inay gumaadaan mas'uuliyiin iyo dad shacab ah oo hotelka ku sugnaa. dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ee hotelka SYL ka soo badbaadiyeen ku dhawaad 100 qof kuwaas oo isugu jiray mas'uuliyiin dawladeed iyo dad shacab ah waxaana ay dawladdu sheegtay in dadkaasi hotelka ay ku nasanayeen laakiin al-shabaab ay doonayeen in dadkaasi ay gumaadaan. dawladda waxa kale oo sheegtay in dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray weerarkaas 8 qofood oo shacab u badan. ururka 6aad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya iyo ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ka qayb qaatay howlgalkan. waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay bogaadinayaan ciidamada ammaanka kuwaas oo si naxariis leh u soo badbaadiyay dad badan oo shacab ay ku jireen. dawladda waxa ay sheegtay tirada dadka la soo badbaadiyay inay gaarayeen ku dhawaad 100 qofood. ugu dambeyntii dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay murugada iyo tiraanyada la qaybsanaysaa dhammaanba asxaabtii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday hotelka SYL ayaa lagu yiri war ka soo baxay dawladda Soomaaliya. dhinaca kale al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkan ay ku qaadeen hotelka SYL. dagaalyahanada al-shabaab waxay sheegteen in weerarka ay ku qaadeen hotelka SYL ay ku dileen ku dhawaad 20 qof kuwaas oo ay ku sheegeen inay ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ciidamo dawladeed iyo sidoo kale dad u shaqeynaya dawladda Soomaaliya. warkan ka soo baxay al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan ay ku qaadeen hotelka SYL uu socday ku dhawaad 8 saacadood gudaha hotelkan ay ka geysteen toogashooyin. warbaahinta al-shabaab taageerta ayaa soo bandhigtay magacyada dad lagu sheegay in lagu dilay weerarkii ka dhacay hotelka SYL iyo kuwa kale oo lagu dhaawacay waxaana al-shabaab dadkaasi ay ku sheegeen mas'uuliyiin dawladda ka tirsan saraakiil ciidan iyo dad dawladda u shaqeynayay. Aweys Maxamuud Jilcow Cable TV Muqdisho. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.